Sweden berri waxaa ka furmi doona doorashooyinka hordhaca ee guud ee waddankan Sweden. Doorashooyinkan ayaa ka duwan doorashooyinkii hore u dhici jiray Sweden. doorashadan runtii waa muhiim aad iyo aad bay muhiim u tahay way ka duwan tahay doorashooyinka hore ee dalka Sweden ka dhici jiray saddex qodob bay muhiim u tahay marka koowaad waxaan rabnaa inaan isbedel ku sameeyno xisbiyada afarta ah ee cusuriyiinta ah ee runtii sharciyo adag dalka keenay marka labaad waxaan rabnaa isbedel inaanu sameeyno oo aynu fursad siino dadka ajnabiga kala duwan marka saddexaad waxaan u baahanaa inaynu helno siyaasiyiin tayo leh oo qiimo leh oo namatali karayo baahida qofka Soomaaliga ah qofka muslimka ah qofka Afrikaanka ah sidoo kale qofka ajnabiga ah baaq waxaan ugu dirayaa bulshadeena Soomaaliyeed 13 September inay codeeyaan 2 week ka horna inay bilaabanayso oo 40 trust waxa loo yaqaan ama codeynka ka hor xilliga ugu dambeeyay ay qofka ay codeyn karayaan hadana la codeeyna kulay isbedel aanan maaragtay aan anfacin badan iman karayo marka hal la codeeyo waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa in sanadkan aad ka qayb qaadato ama doorashada soo socoto waa doorasho aad iyo aad muhiim u ah waxaana ay ku qosaysaa annaga oo meeshan degan qaasatan haweenkeena maaragtay wataan xijaabka iyo maaragtay jabaabada in maaragtay xisbiyadan maanta hayso tiida bartilira inay ka qaadaan ay u baahan yihiin marka waxyaabo balo culus oo nagu soo wajahana way jiraan in la isku cadaabayo ama la isku dhibayo maaragtay baasaboorradii oo la ceshanayo carruurtii oo xarig la xirayo ayagoo 13 jir iyo dhibaatooyin kale oo na haysato marka waxaan rajaynayaa in Soomaalida maanta iyo muslimiinta halkan deganba inay ka qayb qaataan doorashadan waxaan ognahay dhibaatooyin fara badan inay nahayso muslim naceebka badatay sidoo kale hadda dawladda midig waxay rabaan inay gabdhaheena xijaabka ka mamnuucaan sidoo kale waxa ognahay dawladdan inay baahida bulshada ka jirto aysan wax u qaban waxa tusaale ahaan kamid ah waxaan ognahay dhinaca shaqalaan inay jirto ku dhawaad 500,000 qofood shaqalaan hayso nisbadii sano kaligeed baan halkan Soomaali ku ahaa marka waxaan rajaynayaa 2026 ugu yaraan in walaalkay Ilyas aan baarlamaanka isla joogno marka insha Allah walaal waxaan ku leeyahay garabkaaga fadlan coday kadibna ugu yaraan 5 qof ku dhiirigeli inay codeeyaan si aan codkeena isbedel ugu muujino codkeena wuxuu hiile u yahay gabadheena xijaaban codkeena wuxuu hiile u yahay muslimiinta ku nool Sweden codkeena wuxuu hiile u yahay xurriyad dimuqraadiyad iyo sinaan inaan Sweden ku noolaano codkaada waa awoodaada ee hadayicin saabir cilmi CSO Media Sweden